muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa waxyaabaha sababo inay boog ama nabar ka soo baxo xubinta taranka ragga iyo sida loo daaweeyo ayaan ka hadli doonaa insha Allah. In xubinta taranka ragga lagu arko boog ama nabar waa xaalad caan ah, waana xaalad stress badan oo ragga markay isku arkaan aad ay u walwalaan. Waxa ugu badan ee sababa xaaladan waa irritation ama allergy ama xasaasiyada. Dharka iyo saabuunta iyo shaambada waxay kicin karaan ama waxay sameyn karaan irritation ay sameyn karaan oo waxay taaban karaan qayb ka mid ah xubnaha taranka ragga. Markay taabtaan kadibna meesha waxaa ka imaanayo inflammation ama caabuq ayaa ka dhalanaya. Caabuq markuu dhasho kadibna waxaa imaanaya inay boog sameysanto. Waxa loo yaqaan irritation waxyaabaha kale ee sababi kara waxaa ka mid ah galmada ayaa sababi karto. Haddii aan lala tacaalin xasaasiyada ama irritation waxaa dhacayso in wasakhda iyo dhididka isku darsoomaan. Sidoo kale waxaa ku darsoomayso bakteeriyada jaanis sugaa ahayd ama cudursidihii jaaniska raadinayay. Markay ku darsoonto kadib waxaa imaanayo caabuq loo yaqaan balanitis kaasoo ah caabuq ku dhaco qaybta ugu horeysa ee xubinta taranka ragga. Waxaana la arkaa nabre aad u badan oo ka soo baxo qaybta hore ee xubinta taranka ragga. Nabrahaas markay soo baxaan waxaa la arkaa cuncun iyo xanuun ayaa lagu arkaa mararka qaar. Haddaba sidee loo daaweeyaa xaaladan? Xaaladan marka hore waxaa wanaagsan qofka inuu ka fogaado waxyaabaha ku kiciyay. Tusaale ahaan haddii uu soo iibsaday dhar cusub ama haddii uu marsaday shaambo ama saabuun ay gaartay, waxaa wanaagsan inuu ka fogaado marka hore. Marka labaad waxaa wanaagsan inuu qaato daawooyinka loo yaqaan antihistaminiska sida bumaato iyo kaniini inuu qaato ayaa wanaagsan. Haddaba haddii uu dhasho marka caabuq loo yaqaan balanitis, waxaa loo baahan yahay daawooyin dheeri ah oo markuu caabuqaas yimaado qofka waxaa wanaagsan inuu isku darsado kareemka loo yaqaan corticosteroids. Sidoo kale waxaa wanaagsan inuu ku darsado kareemiska antibacteriada iyo antifungalka inuu ku darsado ayaa wanaagsan. Sidoo kale waxaa wanaagsan inuu ku dadaalo guud ahaan nadaafada xubinta taranka inuu ku dadaalo ayaa wanaagsan. Waxa labaad ee sababi kara in xubinta taranka ragga lagu arko boog ama nabar waa cudurka loo yaqaan syphiliska ama isfiidatada ama waraabowga. Cudurkan isfiidatada wuxuu sababaa boog aan xanuun lahayn oo ka soo baxdo xubinta taranka ragga ayuu sababaa. Marka boog ayaa soo baxaysa, boogtaas waxaa loo yaqaan jaankar. Cudurkan cudurada kale wuxuu ugu duwan yahay boogta soo baxayso ma lahan wax xanuun ah. Isbuuciyo kadibna waxaa la arkaa inay baabado. Haddaba ma rabo muuqaalka inaan kaga hadlo isfiidatada. Haddii aad u baahan tahay waxyaabo dheeri ah oo ku saabsan isfiidatada, waxaa wanaagsan inaad ka raadsato YouTube channelkeena oo hadda ka hor ayaan ka hadalnay wax ku saabsan isfiidatada. Sidoo kale waxyaabaha sababi karo in xubinta taranka lagu arko boog ama nabar waa cudurka loo yaqaan genital herpes. Genital herpes waa mid ka mid ah cudurada ku faafo galmada, waxaana la arkaa boog ka soo baxda xubinta taranka ragga. Boogtaas waxaa la socdo xanuun ayaa la socdo. Sidoo kale boogta waxaa la socdo bocool ayaa la socdo. Markay bocoosh dilaacdana waxaa la arkaa inay meesha qolof sameysanto oo boogtan waa mid aad u xanuun badan. Sidoo kale waxaa la socdo cuncun aad u daran ayaa la socdo. Haddaba cudurkan waxaa sababa viruska loo yaqaano herpes simplex virus. Sidoo kale cudurkan wax daawo ah ma lahan oo qofka wax lagu daaweyn karo ma lahan. Laakiin cudurkan haddii uu wadanka ka dilaaco ama cudurkan case badan haddii la arko, waxaa ka hortag ahaan loo qaataa daawooyinka loo yaqaan antiviralka. Haddaba qofka qaba cudurkan waxaa wanaagsan inuu joojiyo galmada ilaa ay ka reesanayso boogta. Ugu dambeyntii, waxyaabaha sababa in xubinta taranka ragga lagu arko boog ama nabar waa cudurka loo yaqaan scabiaska ama cudurka isnidaamiska. Cudurka isnidaamiska waxaa la arkaa nabro aad u badan oo yaryar ah oo afka biyo ku wato in lagu arko hareeraha xubnaha taranka ragga. Nabrahaas waa nabro aad u badan, cuncunkoodan waa mid xadhaaf ah oo waxay leeyihiin cuncun aad u badan ayay leeyihiin. Cuncunka wuxuu badan yahay habeenkii ayuu badan yahay. Nabrahan ma ahan mid kaliya oo waa nabro aad u badan. Inta badan nabraha waxay ka soo baxaan hareeraha xubnaha taranka sida cajirada ayay ka soo baxaan. Haddaba isnidaamiska waxaa sababa parasite ama cudursidaha loo yaqaano mites, gaar ahaan Sarcoptes scabies. Ugu dambeyntii, daaweynta cudurkan waxaa inta badan lagu daaweeyaa cudurkan kareemka loo yaqaan benzyl benzoate ayaa lagu daaweeyaa. Guud ahaan waxaa wanaagsan haddii aad ku aragto hareeraha xubnaha taranka boog inaad dhakhtar aado si loo hubiyo waxay tahay.